Gabadh iyo wiil ayaa wada noolaa, waxaana ka dhexeeyay xiriir jacayl ah. Sannado badan kadib, wiilkii waxa uu dhammeeyay jaamacaddiisii wuxuuna go'aansaday inuu waxbarashada ka sii wato meel aan waddankiisa ahayn, yacni meeshuu hadda joogo. Intuusan tegin, wuxuu gabadha u soo bandhigay guur, wuxuuna ku yidhi, anigu hadallada kuma wanaagsani, laakiin waxaan ogahay in aan ku jeclahay. Haddaad ii ogolaato, waxa aan ku daryeeli doonaa inta noloshaada ka dhiman. Gabadhii waa ay ogolaatay, weliba sida uu ninku damacsan yahay ayay ogolaatay. Faamilkii gabadhana waa ay ogolaadeen inay labadoodu isguursadaan. Intuusan tegin ayaa ay ismehersadeen. Gabadhu waxay aaday waddan kale si ay uga soo shaqaysato, ninkuna wuxuu aaday waddan kale si uu waxbarashadiisa uga sii wato. Waxay jacaylkooda iskaga diri jireen iimaylo iyo wicitaan. Inkastoo xaaladdu adkayd, laakiin labadooduba mayna isdhiibi jirin. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa gabadhii iyadoo shaqadeeda u socota waxay ku dhacday gaari kale. Waxay ogaatay inay dhaawac xun tahay. Aragga ay aragtay hooyadeed oo ooynaysa waxay rabtay inay niyadda u dejiso, laakiin waxay dareentay waxa afkeeda ka soo baxayaba inuu yahay hawo keliya. Waxay ogaatay inayn hadli karin oo ay codkii weyday. Dhakhtarkii wuxuu yidhi jugta maskaxda ka soo gaadhay ayaa sababtay in ay codkeeda weydo. Imaatinkii ay gurigeeda imaatay, wax walba wuxuu ahaa sidii hore, wax bay soo bedeleen. Waxaan ka ahayn wicitaanka telefoonka taasoo qalbigeeda dilaacinaya mar walba uu dhaco. Mayna rabin ninka inuu ogaado waxa ku dhacay si ay culays ugu noqoto. Waxa ay u qortay warqad iyadoo leh, ma rabo inaan ku sii sugo cabaar. Warqaddii ayayna u dirtay. Taas beddelkeeda ninkii dhowr jeer ayuu soo wacay, wuxuuna u soo diray reply badan iyo maasajyo badan, iyaduna oohin mooyee wax kale mayna haynin. Waalidkeed waxa ay go'aansadeen inay magaalada iskaga tagaan, meel kale tagaan, ay wax walba u ilowdo una faraxsanaato. Biica cusub, gabadhii waxay baratay luuqadda faraha looga hadlo ee dhagoolayaasha, taasoo ay nolosheeda u sheegayso inay wax walba ilowdo, weliba ay ilowdo ninkii ay ismehersadeen. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa yimid saaxiibadeed oo u sheegtay inuu ninkii bannaanka taagan yahay. Waxay ka codsatay saaxiibkeed inayna ogeysiinin ninka dhibka ku dhacay. Markaa wixii ka dambeeyay, waxba news ah ama war ah may ka maqlin saaxiibkeed. Sanad ayaa ka soo wareegtay. Saaxiibadeed ayaa warqad u keentay. Warqadda waxaa ku jiray invitation card oo ninka arooskiisa ah. Gabadhii way naxday, waa ayna qalbi jabtay. Laakiin markay furtay invitation cardkii, waxay ku aragtay magaceeda. Markay rabtay inay saaxiibadeed weydiiso waxa dhacayana, waxay aragtay ninkii oo taagan horteeda. Wuxuu isticmaalay luuqadda faraha ee dhagoolayaasha si uu ugu sheego inuu 1 sano baranayo luuqaddan, si uu awood ugu yeesho inuu iyada la hadlo, iyo si uu u ogeysiiyo inuusan ilaawin ballantii ay wada galeen ee ahaa guurka. Vivo convencido de que no me has olvidado, de que por